حكاية وده ورديك حكاية أنت حكاية سعودة waxaan joognaa maanta deegaanka Garas Valley gaar ahaan meesha ay deganayeen نور علي وهيسي dhibaatada waan hadda ka hor soo noqday maalin maalmaha ka mid ah halkaan oo runtii anaga maadaama uu qofka aabahay uu ka dhintay maaragtaa dhaxalaan u helnay dadkii markii aan soo dejinay kadib waxaa soo muuqanaysa in marwalba baahi ay taagan tahay maadaama yihiin dad tabar daran oo masaakiin oo aad iyo aad u liito waxaa noo suura galay inaan la xiriirno iyo dad shakhsiyaad ah iyo shirkadda hormuud qaybteeda foundationka wasaaradda gargaarka laftirkeeda waa la xiriiray waxaa sidoo kale hay-adda nasda oo runtii cabdiraxmaan uu mas-uul ka yahay ayaa laftirkiisa la xiriiray maalmaha ka mid ah cabdiraxmaan isbashal halkaan ayuu yimiday markuu yimido u arkay dadka tabarta daran iyo xaaladooda sida ay tahay isla markiiba go-aan wuxuu qaatay ah inaan jawaabtii aan ka sugaynay inuu degdeg uga soo jawaabo khayr allah siiyo runtii hay-adda nasda gadaal ay ka caawinaysa muslim aid aad iyo aad ay u mahadsan yihiin wayna soo gaartay dadkii dhibaataysnaa waa kuwaan oo dhakhaatiirtii maanta ku daaweynaya halkan oo dadkii bukaanka qabay oo aan hore dhakhtar ugu imaanin ay u imaanayaan maanta ku hayaan halkan ku baarayaan ay daaweyn ku siinayaan yaa wax yaroo raashin oo mucaawanaad ah waa kugu qaybinayo marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran sida adigu kaalmayseen dadka walaalaha masaakiinta muslimiinta ah waan kaaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sidoo si lamid ah deegaanka guddoomiyihiisii cabdiraxmaan gariir iyo ku-xigeenkiisa xagga arrimaha bulshada iyo oo ayagana joogo aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa cid kastoo gacan ka geysatana waa u mahadcelinaynaa waa runtii waa dad mudan in si gaara loo fiiriyo gaara lagu fiiriyo aad iyo aad loogu dadaalo maxaa yeele waa dad dhibaataysan oo aan dhaqaaqi karin oo aan shaqaysan karin oo aad iyo aad u liito kaalmana u baahan nolosha waxa aan rabno wax lamid ay u baahan yihiin marka waxaan leeyahay cid kastoo muslim ah Soomaali ah gargaarka ka qayb qaadato dadka masaakiinta u gargaarto meel kasta ay joogaanba waa mar walba baahi taagan waaye bismillaahir rahmaanir rahiim maanta taariikhdu ay tahay 16 bisha 2 waxaan soo gaaray degmada Garas Valley sadarkiisa waxaan soo gaarsiinay raashin iyo marakaneeco insha Allah taala waxaad arkaysaan waa dadkeenii oo dhibaataysan markii uu gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir mudane Yuusuf Madaale oo dadka markuu u kurgalay xaaladaha rasmiga ee ka jira degmadan meesha dadka ay ku dhaqan yihiin waa meel asaga markii hore si waqaf u bixiyay wuxuu marka naga codsaday in dadkaas masaakiinta aan caawino markaan halkan imaanay oo xaaladda rasmiga aan fiirinay runtii waxaa noo soo baxday sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaas waxaan ugu jawaabi karnaa ugu jawaabno insha Allah taala waxa meesha aan keenayna ma aha wax dadkan wax u taraayo laakiin waa wax bilow ah waa qof waliba oo Soomaali ah ama hay'ad kasta oo ummadda masaakiinta doonaysa inay caawiso insha Allah taala way ma karaan waana soo waxa waaye maamulkii iyo mas'uuliyiintu soo dhaweynayaan